السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن مركله muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay dhulka barakeysan ee Baytul Maqdis ama Qudus maxay isku maandhaafsan yihiin muslimiinta Carabta iyo Falastiiniyiintu wayna isla ogaan doonaa ku soo dhawaada muuqaalka faahfaahsan ugu horeyn Qudus waxay ku dheehan tahay iimaanka muslimka Qudus sida ay muslimiintu rumaysan yihiin waxay ku leedahay kaalin diimeed oo sare waxana sidaas ku waafaqsan muslimiinta dhamaantood la yaabna ma laha inay isku waajibiyaan muslimiintu difaaca Qudus oo ay difaacaan xurmadeeda iyo muqaddisaadkeeda una horaan naf iyo maal sidii ay u ilaalin lahaayeen ugana dhicin lahaayeen xadgudubka cadawga Yahuudda waxayna isku maandhaafsan yihiin muslimiinta Carabta iyo Falastiiniyiintu mowqifka laga istaagayo nabadda Israa'iil gumeysiga Sahyooniga xiriirka lala yeelanaya ma bannaan yahay mise ma bannaana hadduu bannaan yahay miyaa lagu guuleysanaya mise waa lagu jabaya xaqiiq waa lagu jabaya Yahuuddu ma taqaano ballan axdina ma laha Yahuudiyu hase ahaatee kulligood muslimiin Carab iyo Falastiiniyiin iskuma ay khilaafin islaamnimada Qudus iyo sida ay lagama maarmaan u tahay in islaam ahaato waajibnimada iska dhicinta isku dayga Israa'iil ee ay ku Yahuudinayso dhulka barakeysan isleedahayna bedel wixii lagu yaqaanay dhulka barakeysan isleedahayna masax jiritaankii taariikheed ee dhulka barakeysan waxay kaloo isleeyihiin tirtira muuqaalkii Carabnimo iyo islaamnimo ee dhulka barakeysan ee Baytul Maqdis hase ahaatee isku daygaasi wuu suuroobi waayay Yahuudda ilaa waqti xaadirkan ay taaganna waxana laf dhuun gashay ku noqday dhalinyarada reer Falastiin oo difaacaya dhulkooda iyo majaajka barakeysan ee Baytul Maqdis iyo ururka Hamas oo dusha kala socda Yahuuddu waxay sameynayaan dhulka barakeysan oo haday isku day sameeyeen Yahuuddu isleeyihiin ku qaada dhulka barakeysan kuna duula ururka Hamas ayaa u dawamara magaalooyinka ay ka haystaan reer Falastiin kana qabsadeen ee caasimadda Israa'iil ayay gantaalo ku tuuraan haday isku day sameeyeen una hanjabaan inay weerar culus ku qaadayaan haday u dhawaadaan dhulka barakeysan ee Baytul Maqdis ururka Hamas iyo dhalinyaradaas ayaa laf dhuun gashay ku noqday Yahuudda Qudus muslimiinta agtooda walama taabtaan waa qibladii koowaad dhulkii gooreynta iyo dheelminta magaalada saddexaad ee la weyneeyay dhulkii nabiyada iyo barakada dhulkii jihaadka iyo furashada sidaynu ogaan doono muuqaaladeena soo socda muuqaalkan xiga haddaba muuqaalkeena maanta intaas uu ka eeka wuxuu hordhaco ah insha Allah muuqaaladeena soo socda haddaad ka hesho muuqaalka ha ka hilmaamin inaad leed saartid muuqaalka si dad badan u gaadho channelkana subscribe saar haddaad ku cusub tahay inta muuqaalka xiga isugu yimaana waxaan iga tagaya amaana Allah wassalaamu calaykum